badankeyg boqashada ku joogtiyo mudug balaheediyo bidada garowa loo wada biseeno igu beertay boqolido inaan balweeyoon batarkiyo ciyaartiyo dhaantada ka boodaan kugu soo boqolay bulsho yahay deema nabadba anaa inaan balweeyoon batarkiyo ciyaartiyo dhaantada ka boodaan kugu soo boqolay bulsho yahay waxaan ku soo damaashaa tagnay annagoo aan dhalinyarta reer Buurtile dalxiiska iyo nimcada Ilaahay nagu galadaystay runtii meel fiican ayay wax noo marayaan dalxiisku waa waxyaalaha koowaad oo ka qayb qaata firfircoonida shakhsiyadda bini'aadanka marka aad iyo aad waxa weeye waan ku faraxsanahay waxaan dareemaynaa shucuurtaydu aad bay u fiican tahay ramaaski ayaan ag yaala caanihii ayaan cabaynay geelii baan raacaynay runtii waxa weeye maantay waxay ahayd maalin uga duwan haddaan ahay dhalinyarta reer Buurtile waxa weeye maalmaha kale waxaan ku boorinayaa waxa weeye dhalinyarta magaalooyinka kale inay dalxiiska badiyaan oo waxa weeye ay nafta baraan inay maalmahooda qayb ka mid ah ay ku soo qaataan waxa weeye jeexooyinka iyo waxa weeye iyo meelaha waxa weeye aadka u fiican nafta iyo waxa weeye nolosha dhiirigelinaya maantay sidaad u jeedaan waxaan ku jirnaa Greenland macnaha waxay ku taallaa meel Buurtile ka ah dhanka koonfureed sidaad u jeedaan baa meeshaan qof walba waxa weeyaan magaalo ku daala iyo buuqeediisa waxankeed mar allaale markuu yimaado wuxuu dareemayaa raaxatu nafsi waxa la yiraahdo Buurtile markuu roob ka da'o waxay ka mid tahay meelaha loo dalxiis tago oo yacni deel dhihi karo Puntland waa ugu bilicda wacan waxaan ku boorinayaa ama waxaan dhalinyarada ugu baaqiyaa odayaasha iyo maxaan ku yiraahdaa dhammaan ummadda reer Puntland oo dhan inay maxaan ku yiraahdaa aad u ilaaliyaan dhirta isla markaana ka faa'iideystaan xilli roobaadka iyagoo reebaya xasuuso iyo sheekooyin u gaar ah si hadhow tibiri kamaale waxa weeyaan markii cimiladu isbedesho loo ogaado meeshan sideedii ahayn jirtay waxaan kaloo aad u salaamayaa dhammaan inta istaqaana waxay isugu jiraanba waan salaamayaa haddaan nahay dhalinyarta degmada Buurtile waxaan ugu baaqanaa dhalinyarada mataqaana qurbaha barafka ku dilay in dhulkooda hooyo la yimaado asaga mataqaana waxa la yiri cawska jidaal waa lama huraan asaga mataqaana lama huraan ah waxa loo baahan yahay dhalinyarada ku fakaraysa in darbigiisa iyo mataqaana meel mataqaana ay u sameeysaday waxa loo baahan yahay dhulkaada inaad ku dalxiistid dhulkaada macdanta iyo adduunka iyo barwaaqada ku jirta inaad la soo baxdid waxa loo baahan yahay dhulkaada kugu baahan laakiin dhul shisheeye kuma baahna sidaad u jeedaan tani waxay marxaati ka tahay ama mataqaana shacab weynaha Puntland gaar ahaan degmada Buurtile ay dareensinaysaa in dhulkii sidan uu yahay laakiin dhalinyarada wadankan laheed oo mataqaana loogu xisaabtamayo wadankan inay isaga wada baxeen sidaa daraadeed annagu haddaan nahay dhalinyarada degmada Buurtile waxaan gudbinaynaa message oo ah in wadankii sidan uu yahay oo barwaaqada noocaana oo quruxda meeran ay ka jirto sidaa daraadeed waxaan ku baaqanaa wadankiina dib ugu soo laabta wadankiina ka shaqeysada halkan hadda waxaan ku raahdaa barwaaqadan maanta waxaan ku raahdaa dhalinyarta soo aaday oo soo dalxiistay baan ka mid ahay halkan maanta waxaan ku raahdaa ku sheekaysanay oo ku burdubanay oo maanta waxaan ku raahdaa ilaa maanta aan harsanay waxa ugu baaqaya dhalinyarta meel kasta oo joogaan inaan maxaan ku raahdaa inay maxaan ku raahdaa dhulkooda inay u dalxiistagaan dhulkooda maxaan ku raahdaa barwaaqada taala inay ay tagaan oo u dalxiistagaan oo maxaan ku raahdaa ay iska daayaan inay maxaan ku raahdaa wadamo maxaan ku raahdaa kale ay aadaan oo maxaan ku raahdaa ay soo sawiraan inay dhulkooda barwaaqada ay ka qayb qaataan oo tagaan oo soo dhulkooda tagaan oo u dalxiistagaan oo dhulkooda barwaaqada joogta ay soo arkaan dhammaan waxaan salaamayaa shacab weynaha reer Puntland gaar ahaan shacab weynaha reer Buurtile runtii maanta waxaan u soo dalxiis tagnay meel ka mid ah deegaamada ugu quruxda badan Puntland oo ku yaala degmada Buurtile waa u jeedaan quruxda ka muuqata waxaan soo qaadanay caanaheena waxaan helnay burkii waan dubanay
dee maanta oo dhan jawi degan baa ku jiran run ahaantii magaalada iyo meeshan waa kala duwan yihiin meeshan waa jawi degan bay leedahay waxay leedahay udgoon bay leedahay waxay kala leedahay caanihi baa keenaysaa waxaa kaloo keenaysaa burkii waxaad ku qaadanaysaa hawo ka macaan tii magaalada waa ku qaadanaysaa waana soo dhaweynaynaa dadka u soo dalxiis tagaa wadankooda oo ka yimaada qurbaha kuwa qurbaha joogana waxaan leenahay wadankiina wakaas wuxuu u baahan yahay wax yar oo maalgelin oo lagu qurxiyo oo sida wadamada adduunka ay u qurxsan yihiin oo kale waa laga dhigi karaa hadda waa ka qurux badan yahay haddii la sii habeeyo oo meelo fiican loo sameeyo waxaan filaynaa inuu wadankan ka qurux badnaan karo wadamo badan oo caalamka ku yaala oo lagu sheego qurux inuu ka qurux badnaan doono marka waana soo dhaweynaynaa dadka imaan jiray dadka imaanayana waxaa leenahay soo dhawaada ka faa'iideysta wadankiina quruxdooda udgoonkiisa ka faa'iideysta in leen maanta halkan aan dalxiis u joognaa beertan barwaaqada aan jeedaan hooska biyaha iyo xareedda iyo rayska yaala waan maanta dalxiis u tagnay ma sha Allah dhalinyarada Buurtile iyo dadka Buurtile waxaan ugu baaqaynaa inay meeshaan dalxiis ku qaataan oo ay ku nastaan waa meel nasashada ku fiican si fiican barwaaqada iyo biyaha